علنك كرقاذا aynu wada ciidne calanka kor u qaada waxa habeennimadii xalayto magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer lagu qabtay munaasabad ballaaran oo si meeqaam sare loo soo agaasimay oo lagu xusayo maalinta qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee 18 May oo ku beegan maalinta dib loo soo noqoshada madaxbannaanida Soomaaliland munaasabada oo ka qabsoontay aqalka madaxtooyada ee magaalada Burco ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirka xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Soomaaliland wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada maamulka gobolka Togdheer kuwa degmada Burco laamaha dawladda ee gobolka Togdheer ciidamada kala duwan ee qaranka Soomaaliland madax dhaqameed haween iyo mudan kale waxa ugu horeyn halkaasi ka hadlay mas'uuliyiinta guddida qabanqaabada xuska 18 May ee gobolka Togdheer maamulka gobolka kuwa degmada Burco xildhibaano madax dhaqameed maareeyaha shirkadda Heeko iyo mas'uuliyiin kale waxaynu caawa ku xusaynaa koobiyeysada guuradii la soo noqoshadii qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ka luntay waxaan halkan doonayaa inaan uga mahad celiyo dhammaan shacbi weynaha reer Togdheer oo aan ku hadlayaa afkii guddida qabanqaabada si mug iyo miisaan leh iyo qiimo uga qayb qaatay inay shucuurtooda iyo qarannimadooda ku muujiyaan qaab nabadgeliyo iyo wanaag iyo niyad sami ku jirto waxaan halkan uga mahad celinayaa dhammaan ciidanka amniga qaranka ee gobolka Togdheer oo si qiimo iyo sharaf ku jirto ilaa iyo maalintii diyaar garowga ilaa iyo maanta naftooda u huray waxa mahad gaar ah shirkadaha gaar loo leeyahay ee ugu horeyso shirkadda Heeko oo runtii ilaa iyo maalintii hawsha aanu galay naf iyo shaqaalaheeda maal iyo shaqaale iyo xoog ba nagala qayb qaadatay waxa aynu haysanaa muhiimadda uu leeyahay inaynu wada joogno inagoo nabad iyo caafimaad qabna oo halkan ciidamadu inaga fadhiyaan oo halkan maamulku inaga fadhiyo oo inteeniba maanta madaxtooyadii Burco aynu joogno inagoo iska wareysanayna ama isugu mahad celinayna ama isugu hambalyeynayna wanaagga aynu haysano bulshada reer Burco sida wanaagsan oo xusteen maamulka iyo guddiga qabanqaabada iyo cid kasta oo qayb qaadatayna waanu mahad celinayaa 18 May oo maanta xuskiisii yahay sanad guuradii 31aad waa goobtii Burco waa halkan inaga dambaysa halkii lagaga dhawaaqay Burco waxyaabo badan bay hoodo ku leedahay ku nasiib badan tahay waxaan idin sheegayaa muddo ka kooban 14 casho ayaa maamulka gobolka iyo degmada oo isku duuban habeen iyo maalinba u soo jeedeen maantana midhahay dhashay iyo qiimaheeda waynu aragnaa markhaati baanaynu taa ka wadanahay annagu ka degmaahaan munaasibadan wax allaale iyo waxaanu kala hadhnay ma jirto maadaama ay tahay maalin ku weyn shucuubta Soomaaliland iyo qarannimada Soomaaliland annaguna aanu nahay dadkii calanka ku hoos dhashay ee ku hoos barbaaray sanad guuradii 31aad ee ka soo wareegtay markaynu qarannimadeennii la soo noqonnay runtii caawa farxad gaar ah ayay noo tahay cid kastoo ka qayb qaadatay xafladdan qiimaha badan ee saaka aynu soo bilownay cid kastoo ka qayb qaadatay waanu mahad celinayaa mahad ballaaran waxaan u jeedinayaa dawladda hoose oo runtii haddaynan soo qabanqaamin barnaamijkan maanta iyo caawaba ayna suurto gasheen waxaan leeyahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin bulshada reer Burco reer Togdheer reer Soomaaliland waxaan idin leeyahay hambalyo waxaan idinku hambalyeynayaa sanad guuradii 31aad oo aynu caawa u dabaaldegayno oo 18 May 1991 runtii waxa kale oo jira iyadoo maanta aynu 30 sannadood kadib joogno inaan goobtii laga dhawaaqay wali aynu dhisi kari weyne gurigii aynu kaga dhawaaqnay taana waxaynu u baahannahay meelaha taariikhiga noocaas oo kale ah waa la ilaashadaa inaynu hagaajinno inay noqoto goob loo soo dalxiiso anoo ah xusbi mucaarida oo wadani ah haddana waxaan jeclaa in qarannimadu hal meel ka wada dhacdo dhibsan ma leh waa wada ilaalinaynaa doorashadu inay dhacdo waa quruxdeenna bulshaweynta gobolka Togdheer 31 sannadood ee aynu dawladda ahayn waxaan qaran leh shuruuc kasta oo ay dawladdu leedahay xisbiyadii waxaan malaynayaa 3 xisbi aniga u jooga 3 xisbi hambalyadoodii iyo bogaadintoodii baan idin siinayaa saasaa ku gudoomanaysaan
waxaan leeyahay xisbiyadii kalena geelu mararka qaar baa hilaac u baxaayo la waayaa marka caawa hilaac bay ku yar maqan yihiin sharaf weyn bay noo tahay runtii annagu ka shirkadaan heeka ahaan intii ay munaasabadani socotay waxaannu ka qayb qaadanaynay bilicda magaalada hadday laamiyada tahay hadday stagekii xafladda lagu dhigayay tahay hadday madaxtooyadan caawa aynu joogna ay tahay intaba waxaannu ku boqoranay laydhkaad aragtaan dhinac walba idinkaga xidhan ayaan la daba soconnay meel walba ammaankeeda laydh ayaan maaragtay la daba soconnay runtii xafladaha noocan oo kale waannu soo dhowaynaynaa waannu la shaqaynaynaa waannu ka qayb qaadannaa wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada Somaliland Shukri Xaaji Ismaaciil Bandare wasiirka dastuurka iyo xiriirka golayaasha Somaliland Maxamed Xaaji Aadan Cilmi ayaa iyaguna ka hadlay muhiimadda ay leedahay maalintan qaran ee 18 May waxaan isleeyahay wacdaraha halka ka dhacay oo Burco muujisay si weyn bay u muujisay qaranka dhan ayaa laga xusay maanta oo 18 May ay tahay hambalyo maadaama ay Burco tahay magaaladii lagaga dhawaaqay go'aansitaanka Somaliland inay muujiso inay tahay hooyadii ku tacabtay ee lahayd waxa weeyaan maalintan iyada ah sidaa daraaddeed hooyadu way ilaashataa ubadkeeda iyo arrinkeeda maanta wixii qarannimada aynu ku sii kobcinayno ku sii dhisayno ayaynu u baahannahay waxaan kaliya magaalada Burco iyo shacabkeeda kula dardaarmaya waxaynu u baahannahay si aynu u noolaano adduunyadii way isbedeshay maraakiibtii waa la xidhay konteynaradii waa la xidhay waxa leeyahay maantana ku horkaca ummadda wax soo saarka dalagga iyo beeridda casriga ah ee xoolaha dhaqashadeeda ugu dambeyntii waxa halkaasi shahaado sharaf lagu guddoonsiiyay dadkii soo qaban qaabiyay hirgelinta xafladda 18 May ee gobolka Togdheer Cabdirashiid Timir Honkebel TV Burco